اللهم اغفر له وارحمه، اللهم نور قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم إنه نسأل بك وأنت خير منزول. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. الله نحرسته وحاس قرن مقالة برعو لوgu sameeyay Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin kaasoo ku geeriyooday maalintii shalay magaalada Hargeysa. Aaska qaran ee loo sameeyay Allah naxariistay marxuun Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Muuse Askar, maamulka gobolka Togdheer, maamulka degmada Burco, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Burco iyo sidoo kale madax dhaqameed kala duwan. Mas'uuliyiintii kala duwan ee ka qayb galay aaska qaran ee loo sameeyay Allah naxariistay marxuun Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin ayaa ka tacsiyadeeyay ehelkii qaraabada iyo qaranka Soomaaliland marxuunku ka baxay, waxaana Allah uga baryeen inuu naxariistii janno ka waraabiyo. Ilaahay waxaynu uga baryaynaa marxuunka walaalkay ee dhintay in ilaahay su'aasha u fudeediyo, qabrigana waasiciyo, midigtana ilaahay kitaabkiisa uga dhiibo, jannooyinkiisana kuma casuumo ayaynu uga baahannahay. Innakuna inaynu ku cibro qaadanno ayay tahay oo tayni sugaysa wataa. Waxa garabkayga taagan oo aan doonayaa anigoo ku hadlaya magacii faamliga Xaaji Axmed, Dr. Axmed Maxamed Galow, inaa ugu mahadnaqo garab istaaguna la garab taagnaa walaalkay siduu u daweynayay ee gargaar hospital uga daweynayay afar saac la taagnaa uu talooyinkana siinayay markasta waxaan uga baahnaa una la qabanayay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta waxaynu joognaa aaskii walaalkeen oo ku dhintay Hargeysa, ka soo qaaday Hargeysa, Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin jaamac. waxaynu u soo raacnay inaynu galbino oo keenno gurigii xaqa ahaa, nolosha qaybtii labaad ama meertadii labaad ee la marayay. waxaynu ilaahay uga baryaynaa ilaahay inuu naxariis janno ka waraabiyo. waxaynu ilaahay uga baryaynaa sakaraadkii dhaafiyo, ilaahay inuu su'aasha u fududeeyo, ilaahay inuu su'aasha waafajiyo, ilaahay inuu qabriga u waasiciyo, ilaahay inuu naxariistiisa ugu deeqo. innagana ergada aynu nahay ilaahay inaga aqbalo iyo ducada aynu soo raacnay ehelka iyo qaraabada iyo in alla intii garanaysana waxaynu tacsi baynu uga diraynaa. waxaynu halkan tacsi uga diraynaa faamligii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo carruurtiisii iyo hooyadoodii iyo ayadoodii iyo adeeradoodii ugu horreeyaan iyo dhammaanba ehelka halkan jooga inta halkan u timi tacsida. iyagana waxaan leenahay samir iyo imaan ilaahay ka sii. waxaan leenahay ilaahay su'aasha ha ku sugo xaqa ah. waa rukumadii Burco qoysku ahaa waa garanaysaa Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin. isagana waxaan ilaahay uga baryaynaa in naxariistii janno uu siiyo, qowlka taabitkaana ilaahay ku sugo, innagana ilaahay nooga daba naxariisto. xabaalaha aynu joogno aynu ku waanay iyo cibraba qaadanno. waa raggaynu garanayno ee xukuumadii Burco ayaa halkaa ku wada jira. waa wax lagu cibro qaato runtii, qof walibana halkaas u tegayaa. waxaan leenahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo, ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskiisii iyo carruurtiisii iyo hooyadii dhammaan waxaan leenahay ilaahay samiriyey. waxaanu halkan tacsi tiiraanyo uga diraynaa marxuun Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin. waxaan leenahay dhammaan qoyskii iyo ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii dhammaanteen samir iyo imaan naga siiyo. isagana ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu qowlka saabitkaa ku subo, jannadii firdowsa ku abaaliyo, innagana inooga daba naxariisto. dhammaan waxaan leeyahay reer Xaaji Axmed iyo ehelkii kaleba dhammaanteen samir iyo imaan waynu ducaynaynaa. waa xaq weeye, kullu nafsi daa'iqatul mawt thumma ilaynaa turjacuun. ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo Cabdinuur Xaaji Axmed, eheladii ay ugu horeysay hooyadii iyo walaaladii iyo carruurtiisa iyo xaaskiisii iyo dhammaanba ilmo Xaaji Axmed dhammaantood ilaahay samir iyo imaan saadiqaha ka siiyo. sidoo kale waynu ducaynaynaa inta halkan ku hareeraysan ku aasan xabaalaha Xaaji Axmed ee acyaantii gobolka dhammaantoodba ilaahay samir iyo imaan saadiqa haynaga siiyo, iyagana naxariista jannaha ka waraabiyo, inana inooga daba naxariisto. Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin ilaahay ha u naxariisto. waxaan ka tacsiideynayaa qoyska reer Xaaji Axmed oo dhan, carruurtiisa, walaaladii, hooyadii,
dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay samriye iimaan qof waliba naf waliba maalinteeda dhaafi mayso ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdawsa ka waraabiyo ilaahay uga baryaynaa dhammaanteen shacabka Soomaaliland oo dhan iyo shacabka reer Burcana ilaahay samriye iimaan ka siiyo marxuum Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin ilaahay subxaanahu wa ta'aala naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay ha ku sugo kelmadda xaqa ilaahay ha ku sugo dhammaan ehelka oo dhan ugu horeyso ayeeyo Sahra Sheekh walaaladii qaraabada kale ehelka oo dhan reer Burco waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun samriye iimaanna Allah inaga siiyo dhammaana marxuumiinta kale inuu dhex taaganahay ee jamciisa uu noqday waxaan u baryaynaa inuu iyagana u naxariisto ilaahay marti la jecel yahay ha ka dhigo ilaahay jannooyinkii si wanaagsan ee sarsareeya ha geeyo waxaan leenahay marxuum Cabdiweli Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin oo ka soo jeeda qoysaskii magaalada Burco asaasay ama samataliska ahaa ee wanaagga magaalada iyo gobolka ka shaqeynayay qoyskii uu ka baxay dhammaantood reer Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin iyo magaalada Burco gobolka Togdheer waxaan leenahay samriye iimaan Allah inaga siiyo dhammaan ehelka ayeeday Sahra Sheekh iyo dhammaan adeeraday inuu Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaan u dirayaa tacsi ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannada ha ugu deeqo adeero waxa weeyaan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan wuxuu ahaa nin dad jecel wuxuu ahaa nin dad isku wad leh ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannadii firdawsa ha ugu deeqo maanta dad badan baa soo camray waxay muujinaysaa wanaaggiisii uu bulshada ku dhex lahaa waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu jannada firdawsa ka waraabiyo qowlka saabitkaa ku sugo aynu ilaahay weydiinaynaa waxaan tacsi u dirayaa dhammaan qoyska reer Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin oo ugu horeeyaan xaaskiisii caruurtiisii iyo ayeedood Sahra waxaan leeyahay ilaahay samriye iimaan idinka siiyo inta dhimatay maartay halkan xabaalahoodan joognana waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu iyagana naxariistii janno ka waraabiyo inagana maalinteena inuu uga daba naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhammaan eheladii ubadkii يا صحابتي وكتجينا دمانتين بوين إسقى تعسين إلهي هاي نقصيو سميري إيمان وحكلو دعينا حوالها نتاجنا هي أساسياسي قبل كتقدر وكحريسن حوالها كحريسن قد يقولوا دعينا إلهي حمودينا يرو تنفر دسوا كرساقا ين إلهي ويتيننا inagana waxaan isuga dardaarmaynaa inuu soo diyaar garowno goobtan oo ah taxaqa ah ee aan ku dumayno insha Allah billahi kariim kan waxaan uga taxsiideynaa geerida ku timi qoyskayaga aanu nahay insha Allah ta'ala ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo isagiyo dambiga hore ka dambe ilaahay ka dhaafo ka taxsiideynayaa reer Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin iyo reer hadiiba ku reeyeen reer Xaaji Ibraahinba iyo eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo hooyadii iyo walaaladiiba dhammaantood waxaan leeyahay samriye iimaan Allah idinka siiyo waxaynu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo jannatul firdawsa ilaahay ku arsaaqo ehelkii uu ka baxay ilaahay samriye iimaan ka siiyo dhammaan caruurtii iyo xaaskii iyo walaaladii iyo eheliyadii kale uu ka baxayna ilaahay samriye iimaan ka siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa Cabdinuur Xaaji Axmed Xaaji Ibraahin inuu dambigiisa yar iyo kii soo weyn dhaafo sabir iyo iimaanna inuu ka siiyo tolkii eheliyadii qaraabadii dhammaantood inuu ilaahay ka siiyo ilaahayna isagana subxaanahu wa ta'aala dunyada dhaafiye inuu gurigiisa ka khayr badan noloshiisa ka khayr badan in ilaahay ugu bedelo ilaahay taasaan u weydiinanaa subxaanahu wa ta'aala maanta halkan waxaan ugu nimi saaxiibkay oo aan muddo dheer soo wada kornay Ingiriiska Cabdinuur Xaaji Axmed Ibraahin oo reer Sheffield iyo gaar ahaan reer London aad baan uga tacsiideynaa qoyskii ehelkiisii caruurtiisii oo laba nin ka tagay laba ubada oo raga iyagana samarka ilaahay siyaadiyo ilaahay godka waxaan uga baryayaa inuu godka u nuuro su'aashana u fududeeyo dambigiisana dhaafo Cabdinuur wuxuu lahaa nin takhasus injineernimada ku takhasusay dhalinyartana aad saameyn weyn ugu lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naxariistii janno ka waraabiyo qabriga u nuuro qabriga u waasiciyo
ehelkii qaraabada uu ka baxay iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo ilaahay ha u naxariisto qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ba ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo اللهم اغفر له وارحمه اللهم نور قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم إنه نسأل بك وأنت خير منزول اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya waxaan maanta joognaa aaska injineer cabdinuur oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa oo maanta lagu aasay magaalada Burco jaamac Saleebaan Margadhka Bulsha TV magaalada Burco shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka moobilka qiimaha cusub halka dollar waxaad ku helaysaa internet iyo ku hadal maalinle ah oo aan xadidnayn waxa kale oo shirkaddu qiimo dhimis ballaaran oo 40% kugu samaysay internetka toddobaadlaha hadda waxaad ku helaysaa $3 oo kaliya si aad ugu shubato internetka aan xadidnayn ee maalinlaha toddobaadlaha waxaad ka wada helaysaa dhammaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyey abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada